Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dawadayaal ku soo dhawaada YouTube channelkeena Boss oo 7 halaba waa maalin kasta aad kala socotaan barnaamijka ugu dambeeya ciyaaraha balse maanta waxaan ku eegi doonaa isku aadka horyaalka Europe iyo waliba kan kale yar ee Europa League ayaad ku ogaan doontaan ku daawan doontaan wararka ugu dambeeya ku saabsan arrimahaasi soo kale waxaan ku eegi doonaa wararka ugu dambeeya caantiya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda la filayay inay ka tiyaan kooxahada iyo kuwa la filayay inay ku soo biraan kooxaha kale kooxayaad mooda inay rabaan inay ismuujiyaan ama karti isku yeelaan maalmaha soo socda la filayay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda inuu furmo soo kale tiya waxa xiiso leh inaad moodid in kooxaha Ingiriiska inta badan aysan isku aadin balse aad moodid kooxaha kacakooda inay ku aadeen kooxo aan caadi ahayn barnaamijka aad u maqli doontaa fadlan iska bedelin channelka Bios oo 7 fadlan dad ku cusub tahay subscribe gari soo kale ku dhufo gambaleel ka soo dasho barnaamijka soo dhigno YouTube channelkeena Bios oo 7 bal haddii aan ku bilaawno isku aadka horyaalka Euro ayaad moodeen kooxaha Ingiriiska ay inta badan runtii ku aadeen kooxaha waaweyn balse siba haddii aanayno kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxay marti noqon doontaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxaad moodaa in Zinedine Zidane uu soo dhawaan doono macalinka weyn Pep Guardiola halka macalin Jose Mourinho kooxdiisa Tottenham Hotspur ay soo dhawaan doonto kooxda kubadda cagta ee Leipzig ee ka dhisan cagayo Germanka halka kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay marti noqon doonto una safri doonto cagayo Spanishka kooxda kubadda cagta ee Athletic sidoo kale waxaan moodaa in Chelsea ay soo dhawaan doonto kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich UEFA Champions League draw dhanka kale haddii aanayno isku aadka kale ee Europa League ayaad moodaa in kooxaha Ingiriiska ay haddana aysan ishaleeleen balse waxaad moodaa in macallimiinta kale Ole Gunnar Solskjaer, Ljungberg, Spiro iyo waliba ninkooda aad moodaa in ay kala aadeen Manchester United ay waxay ku aadeen kooxda kubadda cagta ee Club Paraguay halka kooxda kubadda cagta ee Wolverhampton ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Lazio soo kale waxaan moodaa in kooxda Arsenal ay marti noqon doonto kooxda kubadda cagta ee Olympiacos waa isku aadka Europa League ayaad moodaa in kooxaha Ingiriiska ay wacdara ka dhigi doonaan markale haddii aan eegno tababare kooxaanka ahna cidigii hore kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ryan Giggs ayaad moodaa in uu u degay ciyaaryahan Antonio Martial wuxuu u sheegay inuu ismuujiyo hadii kale Greenwood uu qadka kala baxo doono asxaabtiya Buko Travel Agency Nairobi waxay ku taala Eastleigh First Avenue Diamond Palace Hotel soo kale tiya Khadija Buko Travel Agency waa hay'adda socdaalka dalka ka howlgasha caasimadda dalka ee Nairobi iyo waliba gobolka Waqooyi Bari Siba County-ga Mandera waxay duulimaad toos u tagtaa Mandera to Nairobi, Nairobi to Mandera, Nairobi to Alwaq to Nairobi, Nairobi to Takaba to Nairobi. Wilson Airport ay ku degtaa garoonka caasimadda dalka ee Nairobi. Khadija Buko Travel Agency waa hadda socdaalka dalka si raac leh ku aada caasimadda dalka adigoo aan dareemeyn wax daal iyo waliba sidoo kale Khadija Buko Travel Agency waxa ku diyaara dhalinyaro aqoon durugsan leh aga soo dhaweynta hagaajinta bugidka aad doonteeda Khadija Buko Travel Agency alla raacbadna Khadija Buko Travel Agency Nairobi to Mandera Nairobi to Alwaq Nairobi iminkaas waxaan eegnaa ciyaaryahan Ozil ayaad moodaa inuu aad u xanaaqay kadib markuu macalin Lumba ku sameeyay bedel Ozil ayaa kaamirada waxay qabanaysaa isagoo tuuraya wuxuu gacanta ku watay oo glove-ga taasaan moodaa in canaaqiisu noqday mid aan iminka la calin karin dhanka kale haddii aanayno kooxda kubadda cagta Manchester United ayaad moodaa inaysan weli ka daba harin laacibka kooxda kubadda cagta Zalberg ee lagu magacaabo Haaland ayaad moodaa in tababaraha kooxda United Ole Gunnar Solskjaer moodaa in lagu arkay caasimadda dalkaasi ee Norway aad moodaa inuu weli ciyaaryahankan doonaya United ayaa waxay rabtaa inay ismuujiso isdhisto isuna diyaariso wareegga labaad ee Premier League waxa soo kale magaalada Liverpool lagu arkay tababarihii hore kooxda kubadda cagta Napoli Ancelotti ayaa moodaa inuu qaban doono shaqada kooxda kubadda cagta Everton Ancelotti ayaa tababaran caadi ahayn una soo tababari jeer kooxaha weyn sida kooxaha Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta Chelsea waxaad moodaa in haddii uu ku soo biro kooxda kubadda cagta Everton aad moodo inuu meel wanaagsan gaarsiin doono
waa sida caalada ciyaaryahan Paul Pogba ma laga yaabaa inuu dib ugu soo laabto shacabka United mar dhow balse tababaraha kooxdaasi Ole Gunnar Solskjaer uu waramay wargeyska The Daily Star ayaa waxa uu sheegay in Pogba la filayo inuu soo laabto marow balse aan la filaynin bishan inuu soo laabto balse wuxuu ku rajo weeyahay inuu tababarka buuxdo la bilaabi doono kooxda ugu dambeyn maalmo ugu horeeyay bisha January. Manchester United ayaa wali waxaan moodaa inay baxsanayso ay wali ku rajo weyntahay inay keento The United garoonka Old Trafford ciyaaryahan u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester lagu magacaabo Maddison waa 22 jir una dhashay dalka Ingiriiska ayaa mooday United ay doonayso inay ku xujiso qadkeeda dhace. Maddison ayaa haaftiisa wuxuu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu ku biro kooxda United. Fadlan hadaad ku cusubtahay channelkeena like, share and subscribe. Ibahayos, hey,